مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada xalaqaadkii aan kaga hadlaynay siira nabawiya. xalaqadanne waa xalaqadii afaraad. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay sanadkii la oran jiray caamul fiil, sanadkii maroodiga. sanadkanna waxaa magaca loogu baxshay horaanta sanadkaas ayaa ciidan ka socda dowlad alxabasha waxay kusoo duuleen maka ayagoo doonaya inay dumiyaan kacbada. xabashadu waxay ahayd boqortooyo ka talisa qeybo ka mid a Afrika. waxay haysteen diinta kirishtaanka ama nasaara ay ahaayeen. boqorka meesha ka talinayo naaneystiisa waxay ahaan jirtay ama maaragtay laqabka loogu yeero wuxuu ahaa najaashi baa la dhihi jiray, oo maaragtay titleka ama maaragtay magaca mansab ahaan boqorka loogu yeerayo najaashi ayaa la dhihi jiray. xilli ka horeeyay dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay xabashadu qabsadeen Yemen. ciidankooda waxaa hogaaminayay nin la oran jiray Aryaad. markii ay qabsadeen Yemen waxoogaa ay maaragtay ka talinayeen nin ciidanka ka mid ahaa oo marka taliyaasha ka mid ahaa oo la oran jiray Abraha ayaa maaragtay kacdoon ku sameeyey, maaragtay Aryaad kacdoon ku sameeyey oo ka gadooday. marka Abraha iyo maaragtay iyo Aryaad dagaal bay isaga hor yimaadeen, waa la dilay Aryaad. meeshana waxaa la wareegay Abraha ayaa la wareegay. waxaa la sheegay inuu boqorkii najaashi arrintii ka xanaaqay uu maaragtay u dhaartay Abraha, laakiin Abraha uu iska sasabay, uu raali geliyey, ka cudur daartay, boqorkiina uu ka aqbalay. sidii ayuuna Abraha kula wareegay xukunkii Yemen. waqtigii uu Abraha ka talinayay Yemen wuxuu amar ku bixiyey in la dhiso kaniisad weyn oo loo bixiyey Qulays. kaniisadda dhismaheeda markii la dhammaystiray waxay noqotay kaniisad aad u weyn oo aad loo qurxiyey. wuxuuna Abraha amar ku bixiyey in carabtoo dhan ay kaniisaddan u soo xajiyaan. nin ka mid a carabtu arrinta aad uga xanaaqay ayaa wuxuu soo galay kaniisadda xilli habeena, kadibna kaniisaddii gudaheeda ayuu ku xaajo gutay, wasakhdiina wuxuu mariyey derbiga kaniisadda. kaniisadda ayuu isaga sii baxay. kadibna subaxii ayaa la arkay kaniisaddii waxa ku dhacay xalay iyo wasakhda ay tahay iyo xaaladda ay ku sugan tahay. arrintii waxaa la gaarsiiyey Abraha markii loo sheegay aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna yidhi yaa waaya qofkan ku dhiiraday inuu kaniisaddeediisaan u galo. waxaa lagu yidhi waa nin ka mid a carabta oo ka xanaaqay go-aankii aad qaadatay iyo amarka aad bixisay oo ahaa in carabtoo dhan ay usoo xajiyaan kaniisaddani. oo carabtu waxay weyneeyaan guri ku yaala maka oo ay ula jeedaan kacbada, kaas ayayna xaj ahaan ugu tagaan sanadkiiba mar. Abraha markuu arrintaa maqlay wuxuu go-aan ku gaaray inuu kacbadaasi soo dumiyo si carabtu ay ugu hoggaansanto oo ay kaniisadiisa ugu soo xajiso. ciidan aad u xoogan ayuu diyaariyey. ciidankiisana waxaa ku jiray dhowr maroodi. maroodiyaashaasna waxaa ugu weynaa mid ka mid a maroodiyaasha oo ay ugu talagaleen inay ku dumiyaan kacbada. markii carabtii maqleen go-aanka u gaaray Abraha iyo ciidanka weyn uu diyaariyey waxay isku dayeen inay ka hortagaan oo ay ka celiyaan Abraha inuu dumiyo kacbada. nin la oran jiray Dunafar oo ka mid ahaa reer Yemen ayaa wuxuu diyaariyey ciidan ka kooban qabaa'isha carabta, qaar ka mid a kuwa Yemen degay iyo kuwo kaleba. ciidankii ayuu kaga hortagay ciidankii Abraha.
labadii ciidan markay dirireen waxaa la jebiyey ciidankii Dunafar, asagiina gacanta ayaa lagu dhigay oo la soo qafaashay. ciidankii hore ay usii socday dhulkii carabta ay kusii socdeen iyagoo markaa usii socda Maka. waxay markaa soo gaareen deegaan ay deganaayeen qabiil ka mid ah qabaaisha carabta oo la oran jiray reer Khathcam. markii ay meeshaas soo gaareen waxaa ka hor yimid ciidan uu hogaaminayo nin la yiraahdo Nufayl ibn Habib al-Khathcami oo markaa wata ciidan qabiilkiisa reer Khathcam iyo qabaaisha carabta qaar ka mid oo taageeray wata ayaa waxay ka hor yimaadeen ciidankii maaragtay Abraha. dagaalaa meeshii ka dhacay, waa laga guuleystay Nufayl iyo ciidankiisii. Nufaylna waa la soo qafaashay. Abraha iyo ciidankiisa hore ayay usii socdeen, waxayna soo gaareen magaalada Taa'if oo ah magaalo u dhow Maka. reer Taa'if markay arkeen ciidankan xoogga leh ayna maqleen labadii ciidan oo carabta ah isku dayay inay ka hortagaan ciidanka Abraha, waxay ku dhacay aad bay u cabsadeen, waxayna ka baqeen in Abraha ciidankiisa ay burburiyaan magaalada Taa'if oo ay dhibaato u geystaan dadkooda. waxay ku yiraahdeen boqoryo, anaga kaama horjeedno, dagaalkaagana ma rabno, si aad u aaminto inaan anaga kaa horjeedinna waxaan kugu dareynaa oon ku raacinaynaa qof wadada ku tusa oo Kacbada ku tusa. waxay raaciyeen nin la oran jiray Abu Ruqaal markuu hore usii raacay ciidankii Abraha oo ay ku dhow yihiin Maka ay wadada ku dhintay oo meesha ayaana lagu duugay. muddo dhanna carabta Abu Ruqaal qabrigiisa way dhagaxeen jireen ayagoo kaga tusaale dhiganayo in uu ahaa nin khaa'in ah oo ummadiisa khiyaanay, iskuna dayay in uu cadowgooda soo hogaamiyo oo soo tilmaamo. hore ay usii socdeen ciidankii Abraha, waxay kusii dhawaadeen magaalada Maka. marka ay magaalada ku dhow yihiin ayay waxay gacanta ku dhigeen geel markaas reer Maka ay lahaayeen. geelaasi waxaa ku jiray 200 oo geel uu leeyahay Cabdulmutalib oo ahaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam awgiis, wuxuuna ahaa ninka reer Maka madaxda u ah. Cabdulmutalib markii arrintii loo sheegay wuxuu soo aaday meeshii ciidanka Abraha joogeen, wuxuuna dalbaday inuu la kulmo Abraha. Cabdulmutalib wuxuu ahaa nin aad u qurxoon oo heybadu ay ka muuqato. markii Abraha uu arkay Cabdulmutalib aad ayuu u soo dhaweeyay, uuna qadariyay, wuxuuna ka soo degtay carshigiisa, wuxuuna la fadhiistay Cabdulmutalib dhulka. markii ay wada fadhiisteen ayuu Abraha, haye maxaad iigu timid? wuxuu yiri Cabdulmutalib, waxaan kuugu imid 200 oo neef oo geela oo aan leeyahay ay ciidankaaga gacanta ku dhigeen oo iga qaateen, waxaan rabaa inaad geelayga ii soo deyso oo la ii soo fasaxo. aad ayuu xanaaqay Abraha, wuxuuna yiri waxaan ku haystaa nin qiimo leh oo sharaf leh, aad baana kuu soo dhaweeyay anigoo ciidan u wata oo maanta u socda in aan dumiyo Kacbadiinii iyo gurigii aad weyneynayseen, ayaad waxaad igala hadlaysaa 200 oo neef oo geela oo ciidankayga ay kaa qaateen, meeshii aad arrintan weyn aan u imid igala hadli lahayd. wuxuu ku yiri Cabdulmutalib, arrintaas ku khaldin, aniga waxaan leeyahay geela oo aan maanta kaala hadlayaa, laakiin gurigan waxaa iska leh Allah oo xifdisanaya. arrintii Abraha aad buu uga naxay, wuxuuna amar ku bixiyay in Cabdulmutalib geeliisa loo sii daayo. ciidankii Abraha habeenkii meesha ay iska bariyeen, Cabdulmutalibna magaaladii Maka ayuu ku noqday. waagii markuu bariyay ayuu Cabdulmutalib reer Maka wuxuu ku yiri ka baxa magaalada oo buuraha la aado, ilaahayna hala baryo in uu Kacbada badbaadiyo. ciidankii Abraha waxay isku diyaariyeen inay magaaladii Maka hore u galaan oo shaqadii u yimaadeen oo ahayd inay Kacbada dumiyaan in ay fuliyaan. markii ay diyaar garoobeen oo ay rabeen inay dhaqaaqaan ayaa waxaa dhacay maroodigii ugu weynaa maroodiyada ayaa diiday inuu dhaqaaqo. si kastoo la isku dayo in la dhaqaajiyana wuu dhaqaaqi waayey. markii isku dayaan inay wadadii ka leexiyaan oo meesha jihada Maka jihaan ahayn u leexiyaan, wuu dhaqaaqayaa, wuu soconayaa, laakiin markii loo soo celiyo jihadii Maka wuu diidayaa inuu dhaqaaqo. ayagoo yaaban oo garan la waxay sameeyaan ayaa waxaa ceerka soo buuxiyay shimbiro yaryar oo dhagaxaan wada. shimbirahaasi mid kasta waxay sidaa 3 dhagax, 2 ka mid ah waxay ku wadaa 2 lugood, mid ka midna waxay ku wadaa afka. shimbirihii waxay dul yimaadeen ciidankii Abraha, waxayna bilaabeen in dhagaxaantii ku sii daayaan. mid kastoo ka mid ah ciidankii Abraha oo dhagaxaanta ay ku dhacaan, jirkiisa wuxuu bilaabay inuu googoo ilaa uu dhinto. markii ciidankii Abraha ay musiibada qabsatay oo ay bilaabeen inay kala cararaan oo nin kastaba u maaragtay naftiisa la baxsado, ciidanka kulligood maaragtay dhagaxaanta kumaysan wada dhicin. qaar badan oo kamid ayaa maaragtay dhagaxaantii ku dhaceen oo maashi ku dhintay. qaar kamid oo dhagaxaanta ku dhaceen meesha kumaysan dhimanin oo iyagoo tabar daran ay sii socdeen oo wadada ay ku dhinteen. oo uu ka mid yahay Abraha, waxaa la sheegaa markuu Yemen gaaray inuu dhintay, wallahu aclam. marka ciidankii sidii ay u bilaabeen inay kala cararaan oo nin kastaba naftiisa uu la baxsado,
wadadii ay maaragtay ku noqon lahaayeen oo yeman ay kula noqon lahaayeen maynan garanayn. waxay u baahnayeen dad meelaha yaqaano wadada yaqaano oo wadada tusa. marka waxay raadiyeen ninkii la oran jiray Nufayl ibn Habib al-Khatami oo aan kasoo sheekeynay inuu maaragtay dagaal kala hor yimid oo ay soo qafaasheen oo maaragtay ay wateen. ninka intii ay maroodiga la xarbinayeen ayuu ka baxsaday oo marka buuraha dushooda ayuu koray. inta uu marka ay wax dhacayaan oo ay maaragtay shimbirihii dhagaxyada ku rusheynayaan ciidankii Abraha uu fiirsanayay macnaha. markii ay soo kala carareen oo asaga ay raadinayaan oo Nufayl ay leeyihiin uu u jeedaa kor ayuu ka daawanayaa. marka gabay ayuu tiri uu ku suureynayo xadadkii dhacay iyo sida xaalku u ahaa. wuxuu leeyahay alaa xuyiiti cannaa yaa rudayna nacimnaakum maca al-isbaaxi cayna rudaynatu low ra'ayti walan tarayhi ladaa janbi almuxasabi maa ra'ayna idan lacadartinii waxamidti amrii walam ta'say calaa maa faata cayna xamidtu allaha id absartu طayran وخفت حجارة تلقى علينا فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا. قوي قدن موضة شرحينه لكن فكرة أصوب بندقايو إسلام بوكو هذا القبسانية وماركتي لهالليا وليهي هدي أد maaragtay arki lahayd wixii aan aragnay oo maaragtay musiibo ama imtixaan aan la kulannay runtii wax sahlan maynan ahayn waad ii cudur daari lahayd buu leeyahay. maaragtay wuxuu suureynayaa sidii wax u dhacayeen markii uu shimbiraha arkay. wuxuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala waan u mahad celiyey markii aan shimbirihii arkay oo wuxuu dareemay in ciidankan dulmiga usoo baxay in ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay halaagayo oo ciidan kale oo ka xog badan loo soo diray walow shimbira yaryar ay yihiin laakiin maadaama amarka ilaahay ku socdaan oo waxa ay wadaan ay fulinayaan amarka ilaahay uu yahay runtii waxa waaye diyaarado wax duqeynaya oo kale noqdeen. maaragtay xamidtu allaha buu leeyahay id absartu tayran laakiin dhanka kale wakhiftu xijaaratan tulqaa calayna waan baquu leeyahay anigii maaragtay dhagaxyadaas ayaan ka cabsaday. maaragtay marka falow absartinaa waljeyshu yurmaa bixusbaanin rathayti lanaa rudayna leeyahay haddaadna arki lahayd anagoo markaana la duqeynayo diyaarada inay duqeynayaan mudda ma garatay waxa waaye runtii waad noo nexi lahayd waad noo maaragtay maxay ahayd baroor diiq baan mudannahay maaragtay waxna gaaray ama wax dhacay runtii wax sahlan ma aynan ahayn buu ku suureynayaa. marka markii ay kala carareen isi isaga u raadinayeen buu haddana suureynaya. wuxuu leeyahay wa kullu lqawmi yas'alu can nufaylin kulli waxay leeyihin nufayl aaw kaana calaya lilxubshaani dayna warma aniga deyn bay igu leeyihin waxaa moodaa inayba deyn igu leeyihin si aniga ii raadinayaan u leeyahay ma garatay يعني وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا مدام محبوس وها طبعا وضد دليل بوها وتسهي وما ركت محاهد لقوب البادية هذا ديك لو يدري لهاين مركا وما كانت دلالتهم بزين وما شرف إيمان بليه لكن محاهد وح ناوع نقصان وشرفت ذو سودقاهي ولكن كان ذاك علي شينا مركا حدث كاس وحادث الفيل كاه runtii wuxuu ahaa xadad yani duruus badan iyo cibro badan ay ku sugan tahay oo maxay qofku uu ka baranayo ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa uu ogaanayo in ilaahay subxaanahu watacaala junuudiisa wax la soo koobi kara inaysan ahayn wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar. qofka ilaahay subxaanahu watacaala daalimka ah waqtiguu doono iyo qaabkuu doono inuu u qaban karo maaragta subxaanahu caza wajalla oo maaragtay wax xadidaya ama maaragtay maxay ahayd soo koobi kara ilaahay subxaana watacaala awoodiisa ama baaxadeeda xataa garan kara ma jiro. ilaahay subxana wataala intuu nooga sheegay intuu ilaahay garanayaana maaragtay kasii ballaaran. marka runtii cibrooyin badan iyo duruus badan ayaa ku jiro xadadkaas. markii uu Abraha dhintay waxaa maamulka Yemen la wareegay wiilkiisa oo la oran jiray Yaksuum markuu dhintayna waxaa la wareegay walaalkiis oo la oran jiray Masruuq. labadoodana waxaa la sheegaa inay ka shar badnaayeen aabbahood oo ay dhib badan u geysteen reer Yemen. reer Yemenna markii uu dhibka ku batay waxay sameeyeen kacdoon. kacdoonkaas waxaa ku hogaaminayay nin la oran jiray Sayf ibnu Dhiyazan.
sayf ibnu diyazan wuxuu u baahday inuu helo maaragtay taageero dibadda inuu helo si uga guuleysto ciidankan xabashada ee markaa yeman haysta. wuxuu soo aaday Roomaanka, taageero ka raadiyay wuu ka waayey. kadib wuxuu soo aaday Faris, ayagana markii hore wuu ka waayey, taageerada way u diideen. kadib isku celcelin badan ciidan ayay ku soo dareen. ciidankii isagoo wata ayuu wuxuu soo aaday Yemen. markii uu yimid ciidankii Furs iyo ciidankii reer Yemen oo wada jira ayaa waxay dagaal kala hortageen maaragtay xabashadii waa laga guuleystay, waxaana meeshii la wareegay oo maaragtay boqor laga dhigay sayf ibnu diyazan. sayf ibnu diyazan markuu xilka qabtay xabashadii waddanka uu ka saaray, wuxuu reebay qaar yar uu markaa ka dhigtay shaqaalo isaga maaragtay u khidmayn jiray. meesha ayuu marka muddo ka talinayay. waxaa la sheegay carabta qaybahoodii kala duwan inay u yimaadeen oo ay usoo maaragtay haniyadeeyeen oo ay ugu maaragtay hambaliyeynayaan xabashadii uu meesha ka saaray. kulligoodna dhegtooda ay ka wada yeerayso isku daygii ay isku dayeen inay kacbada dumiyaan maaragtay xadadkii hadda kasoo sheekeynay oo xadadul fiil ahaa. laakiin sayf ibnu diyazan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a raggii xabashada ahaa uu reebtay oo shaqaalaha u ahaa in ay dilaan asaga. markii asaga la dilayna waxaa maaragtay Yemen la wareegay ciidankii asaga la socday oo ciidankii Faris ahaa. qof reer Yemen uma aysan dhiibin xilka, ayaga ayaa kursiga ku fadhiistay oo qof ayaga kamid ay u dhiibeen. marka saasay isaga dhaxli jireen oo markasta nin reer Faris ah ayaa Yemen ka talin jiray ilaa laga soo gaaro xilligii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam boqortooyooyinkii kala duwanaa uu u dirayay warqadaha dacwada gaarsiinayay. xilligaas ayaa ninkii markaa ka talinayay Yemen oo la oran jiray Baadaan oo nin Farisi ahaa uu islaamay. runtii qiso aad u cajiib badan ayuu ku islaamay. qaabka uu islaamay waxaan ka sheekeyn doonaa haddii la yiraahdo marka aan soo gaarno qaybtaas aan ka soo gaarno siirada ayaan insha allahu tacaala ka sheekeyn doonaa. markii uu Baadaan islaamay ayay Yemen ka soo baxday boqortooyadii Faris oo ay ku soo biirtay dowladdii islaamka. halkaa ayaan ku ekeenaynaa xalaqadeenna. intaan xalaqo kale kaga kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.